qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee dalka Kanada ayaa aad ula argagaxay sidoo kalena naxdin dareemay kadib markii la sheegay in dalkaasi lagu dilay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Hodan Xaashi. Hodan Xaashi oo da'deedu tahay 23 sano jir ayaa habeen xilli saq dhexe lagu dilay gudaha baar ku yaala dalkaasi Kanada. Dilkan oo loo haysto gabar cadaan ah oo Hodan ay saaxiibo dhow ahaayeen ayaa booliisku ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen eedeysanaha islamarkaana maxkamad la soo taagaya maalinka Khamiista. Gabadha dilka geysatay oo da'deedu tahay 22 sano jir ayaa la arkayay fiideo baraha bulshada aad ugu faafay iyadoo dhalo gacanta ku sidata islamarkaana aad u garaafeynaysa Hodan Xaashi ayaa mar qura sare jooga ka dhacday, waxaana durbaba dadku ay aad ula argagaxeen. Dhiig aad u badan oo Hodan ka daatay ama ka da-ayay intii dagaalka iyo diriirtu ay dhex marisay labadaasi hablood. Haddaba isla gudaha baarka waxaa la arkayay DJ-ga baarka oo cod dheer ku qaylinaya islamarkaana tilmaamaya in dagaal uu ka dhacay gudaha baarka, iyadoo dhanka kale dadku ay aad u caweynayeen islamarkaana jaas iyo baashaal ay ku jireen. Baarkan oo ku yaala magaalada Saskatoon ee dalkaasi Kanada ayaa la sheegay in albaabada loo laabay wax yar uun kadib markii falkaasi u dhacay. Ciidamada booliiska dalka ayaa durbow la wareegay goobta islamarkaana xidhay, waxaana ay wadaan baaritaan xoogan. Falkan ayaa waxa uu dhacay 5tii bisha Noofembar abaar 9kii habeenimo, waxaana uu ka dhacay aagga loo yaqaano 200 block of 3rd Avenue South oo gudaha dalkaasi Kanada. Ilaa 3 fiideo oo baraha bulshada aad u qabsaday islamarkaana laga soo duubay dagaalkan Hodan Xaashi iyo sidoo kale gabadhaasi ku dhex maray gudaha baarkaasi ayaa baraha bulshada qabsaday, waxaana la arkayay fiideoyadaasi oo dadku ay aad uga falcelinayaan, iyadoo inta badanna la sheegay in shuruucda fiideoyadaasi dhinaca baraha bulshada ay ku xadgudbeen dhinaca shucuurta maadaama dhiig iyo waxyaabo aad u foolxun lagu arkayay. deetana shirkadaha sida Facebooka iyo Instagramka iyo TikToka ay gebi ahaanba doorbideen in akoonada dadka ay ka saaraan fiideogaasi. Haddaba Hodan iyo gabadha kale ee caddaanka ayaa ay dadku sheegayeen inay ahaayeen dad mar walba isaga agdhowaa dadka kale islamarkaana baarkaasi ku kulmi jiray, waqti badanna ku qaadan jiray. mana ahan dhacdadii ugu horreysay isla toddobaadkan laga soo tabiyo dalka dibaddiisa, gaar ahaana dalalka qurbaha. isla mar ahaantana bulshada Soomaaliyeed oo muddooyinka ugu dambeeyay aad looga dayrinayay dhibaatada inta badan ay ku lug yeelanayaan iyo falalka guracaan ay geysanayaan iyo dhibta iyagu soo gaaraysa. dhowaan un ay ahayd markii dalkaasi Jarmalka wiil Soomaaliyeed oo isagu la sheegay inuu kasoo jeeda beesha Gabooye kadib markii faquuq lagula kacay uu doorbiday inuu dhaawaco 2 wiil oo ka mid ah wiilasha dhalinyarada ee ku nool dalkaasi Jarmalka. waxaana la arkayay fiideoga wiilkaasi oo oranaya ama ku qaylinaya cod dheer oo islamarkaana sheegaya ama ereyo sida tan u dhacaya dhahaya oo leh waxaan doonayaa inaan xabsi galo, diyaar ayaan u nahay, maadaama ay doonayeen inay ciilaan noloshana ay ii diidaan. haddaba baraha kala duwan ee bulshada iyo dadku aragtidooda siyaabo kala duwan uga dhibanayeen siba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalkaasi Kanada, waxaana dadka qaarkood ka tala bixinaya intooda badan ay ku boorinayeen bulshada Soomaaliyeed siba jiilka imika jira in ay ka digtoonaadaan dhibaatooyinka ka socda dalalkaasi shisheeya iyo sidoo kale falalka amniga qalqalgelinaya dhibaatana kuwa nafsiyan. haddaba dhalinyaro badan oo dalkaasi Kanada ku nool ayaa la sheegayay ama gudaha ee dalalka qurbaha sida Mareykanka, Kanada, qaar ka mid ah wadamada Yurub ayaa intooda badan siyaabo kala duwan loogu soo xidhay xabsiyada kala duwan kadib markii ay geysteen falal ama ay ku lug yeesheen falal isugu jira daroogo iyo sidoo kale dilal sharci darro ah oo ka socday dalalkaasi. waxaana bulshada inteeda badan dadku ay farayeen in ay isku dayaan in ay ka fogaadaan waxyaabaha dhib u keenaya
islamarkaana mustaqbalkooda galaafanaya. Hodan xaashi oo gabar Soomaaliyeed ah ayay dadka baraha bulshada aad markaasi uga argagaxeen sida foosha xun ee dilkeeda u dhacay, iyaga oo sidoo kalena bulshada qeybaheeda kala duwan ka codsaday in ay usoo duceeyaan gabadhaasi Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay soo gaadhay. Haddaba waxaa gabadhaasi durbaba loo furay qeyb ka mid a goob markaasi ama aan iraahda shabakad lacag lagu ururinayo ehelkeeda. Waxaana arkayay dad badan oo dhaqaalo u ururinayo, iyada oo dadka muxsiniinta ee aada u garanaya ehelka iyo qaraabada gabadhaasi iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Canada ku boorinaya in ay bal ururiyaan lacag gaaraysa 40,000 oo dollar. Durba waxaa aada uga falceliyey dad Soomaaliyeed oo tacsi tiiraanyada u diraya ehelka iyo gabadha qoyska ay ka dhimatay. Dadka intooda badan aada u garanaya Hodan xaashi ayaa waxa ay ku tilmaaminahayd gabar wanaagsan, dhoola cadeyn badan, islamarkaana laab xaadhan, dadka oo idilna jecel, hase yeeshee lagu xadgudbay, sidoo kalena iyadu sababsatay gacan xaqdara ah oo dishay, maadaama ay ahayd gabadh wanaagsan balse goobta lagu dilay oo dadku ay aada uga deyriyeen xilligaasi habeen barka ah ee baarkaasi ay ku jirtay iyo habdhaqankeedii aadka u foosho xunaa. hase yeeshee haddana waxa ay ummadda inaguba alle subxaanahu watacaala u weydiinaynaa inuu u dambi dhaafo, islamarkaana kitaabkeeda gacanta midig ka siiyo, sidoo kalena qabrigeeda uga dhigo beer ka mid a beeraha jannada. Mana ahan dhacdo u guba muddooyinka ugu dambeeyey dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalalka qurbaha ayaa intooda badan waxaa soo wajahaya dhibaatooyin isugu jira dilal, xabsi iyo sidoo kale tarxiir, maadaama ay soo baxayeen falal aada u kala duwan oo naxdin leh oo inta badan ka dhacaya gudaha dalalkaasi. Haddii ay noqon lahayd kooxo markaasi iyagu gaangistaro oo dalalkaasi ka dhisan oo bulshada Soomaaliyeed qaar ka mid a dhalinyaradeeda ay marti u noqdeen in iyagu ay kasoo gaaraan waxyeelo, haddii ay noqon lahayd in iyaga la dilo ama lagu dhaawaco toori iyo waxyaabo la mid ah. Sidoo kale iyaga qudhoodu ay qeyb ka noqdaan falalka lagu waxyeeleynayo dadyowga kale. Guud ahaana dhegeystayaal intaa iyo daawadayaal muuqaalkayaga inta ayaan uga baxayaa. Subscribe inoo saara channelkan, like garee muuqaalkan, la wadaaga asxaabtiina. Waxaanu rajeyneynaa inaynu ummad badan hanan doono, islamarkaana fursad u yeelan doono inaynu macluumaad tiro badan halkan aan ku baahino. haddii imika uu soo gaaray muuqaalkan, fadlan ha naga ilaabin subscribe-ta, like garee muuqaalkan, la wadaaga asxaabtaada.